inagana zamankeena waxaad arki kartaa dad badan oo markii sadaqada ay bixinayaan dadkiisa sawiraya sawir bay ka qaadanayaan qaarkood waxay leeyihiin fiidiyoobu qof soo kaxaysanaya ka duubaya deetana qof miskiin oo iska darbijiib u tagayaa in yar buu hoosta ka gelinayaa shalay iyo maanta say ku ahayd buu yar wareysanayaa deetana farxadiisii qofka buu muujinayaa kaamerad baa intaaba dhan loo duubaya deetana baraha bulshadu soo gelinayaan waxaan aaminsanahay taas yaa inaysan ahayn sadaqadii loo baahnaa ee ay laakiin ay tahay sadaqa marka magac lagu raadinayo ama masama sharaf qofkii ku raadinayo marka sida awgeed farqigaas baa inoo dhaxeeya dadkii salafku say ahaayeen horey baan ka soo sheegay dadkeena zamanka sadaqada bixiyayna qaabka iyo xaaladahaas bay ku sifaysan yihiin qaarkood markaa waxay leeyihiin bisha ramadaan bay ku haas yeelaan oo bilihii kale sadaqa bixin maayaan bishan ramadaan keliyaati ku gooni yeelayaan horta sideedaba ramadaan bilaha kale fadiilo way la dheertahay laakiin cibaado marka laga hadlayo cibaado iyadoo unu gooni ah oonan bilaha kale la sanin ma jirto haddii qofkan waxaa la rabaa un 11 bilood oo uu soo cibaadaysanay cibaadadii uu sameynayay cibaado ka dheeraad ah oo sidii ka dadaal badan ka juhdi badan ka waqti badan inuu la yimaado un bay la dheertahay يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ولا تنقصنا والحمد لله على كل حال أولا وآخرا إلهي سبحانه وتعالى بمهب أوردن له إنه أقلاضي بشا قيمها بضن إن سوقرنو إلهي سبحانه وتعالى نوضحي لي فضيلة أفر بضن وحال إلهي سبحانه وتعالى أنكر تشينينا إنه إلهي سبحانه وتعالى خير كيدو لنا وافتشيو إلهينا سبحانه وتعالى سدا ونوو سو كلنيي خير كيداسنا بنو نوو ختميو إن شاء الله تبارك وتعالى حنكالي دونا دور قلوب أو كتعلوقا صدقاتك مدامي كمتهاي وحيابها إلهي لوغو دواني سبحانه وتعالى بشن قده هذا إن صدقات قفك ولبحو أولا وحن كورينا إلهي سبحانه وتعالى آياتك وإنه فري إنه صدقات كليمنو هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورسولك كورمي مركز صدقات إلهي سبحانه وتعالى وحولي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء آيات إلهي سبحانه وتعالى وحكوك شاقي tusaale lagu siinayo dadka xoolahooda Ilaahay dirtii ula baxa inay yihiin mir oo kale ay lamid yihiin firi oo marka mirta dhulka la geliyo waxay soo saartaa maxaa la yiraahdaa saabuulo ama waxay soo saartaa laamo oo marka midayba intaasoo firi ah ay ka kooban tahay yacni qofkii Ilaahay dirtii hal shay ula baxa shaygiiba wuxuu noqonayaa laga wadaa intaa mudaacafadeedii oo farabadan إلهي سبحانه وتعالى وحول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ضدك المؤمنين تعهوا حوله إلهي درته بحية وحي ولمن إلهي سبحانه وتعالى فضيلة وكيالي وهنبك أما هداك حولهين إن بحستان بمرك عيادة نفرسا يعني حولي وردن وضبحي معها وحكم ذا إلهي درتي ولبح بالليه انت aysan imanin maalin aan wax shafaaca iyo saaxiibtinimo aysan shaqaynaynin وكذلك إلهي سبحانه وتعالى وحو kaga hadlay aayad kale oo yiri alladina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajrun 'inda rabbihim dadka xoolahooda nafaqaynaya ee bixinaya habeen iyo maalin qarsooni iyo muuqaal u bixinaya ajrigooda Ilaahay agtiisa subhanahu wa ta'ala ay ku leeyihiin alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu tawbata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آياتها مركا كسو أروري أدب فبذيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحا رسولك صلى الله عليه وسلم لقصوري حديث مسلم
إنه رسولك الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث يعني ابن آدم كمركو لنتو عمل كيس واقعيا إلا صدح موياني صدح ديبا وحا كميدا هيد إلا من صدقة جارية قف مركا لبحي صدقة جارية waxaa kaloo kulamida inuu nabigeena sallallahu alayhi wasallam wari xadiidka isagna muslim wariyay ma naqasat sadaqatu min maalin wama zaada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wama tawaada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah sidoo kale nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ittaqu an-naara walaw bishiqqi tamratin sidoo kale nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu sadaqatu tudfi'u al-khati'a kama yudfi'u al-ma'u an-naar sidoo kale waxaa nabigeena sallallahu alayhi wasallam uu ku sheegay xadiid kale ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كان تمرة أحاديث تاس إيه آيات كاس لما وحكوا عد إني مركا نأمريان إني مركا صدقة أين لبحنو وهي تاس وحكمك مركا صدقة إيه آيات كاكوس عروري صدقة مركا مرنا وحي نقول سوا زكدي وواجبة مرنا وصدقة كسو هدي زكدة أو مركا تطوع هيد marka qofku inuu markasta sadaqada la baxay waa wax marka diinteenu ay nafarayso ilaahayna subhanahu wa ta'ala loogu dhawaanayo walibana goobaha lagu bixinayo iyo waqtiyada iyo amaakinta ayayna ku kala fadli badan tahay taa marka haddaan ka gudbo waxaan u gudbayaa hal su'aal oo kale su'aashaas waxay tahay sadaqada sirriga ah iyo sadaqada marka calaaniyada ah midkee fadli badan صدقة مركز سرية هي صدقة علانية وحي معناه ذا يتهي أو Soomaali ahaan ay noqonaysaa inuu markuu qofka sadaqada uu la baxayo uu muujisto iyo inuu markaa qariyo midkee fadli badan taa waxay noqonaysaa waxaynu u laabanaynaa aayadda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu yidhi in tubdu sadaqaati fa ni'imaahi wa in tukhfuuha wa tu'tuuha al-fuqaraa fa huwa khayru lakum Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yidhi haddii aad sadaqada markaad bixinaysaan aad muujisaan nicmo bay leedahay oo way fiican tahay laakiin وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء haddii aad qarisaan oo dadka u baahan aad saa qarsooni aad ku siisaan ayaa ka fadli badan inaad muujisaan halkaana markaa axaadiis fara badan marka la isku wada celceliyo waxay culimada jumhuurtu ay qabaan markaa sida markaa qowlka Cabdullah ibn Abbas uu ku tilmaamay oo Cabdullah ibn Abbas waxa ka ansaxay inuu yiri بأن صدقات السر في التطوع أفضل من علانيتها صدقاتك قرصونيدا baa ka fadli badan kuwa la muujinayo waana markaas halkaas bay markaa wahada ma dhahaba ilayhi jumhur ahli ilm saasayna markaa ahli ilmiga badankooda ay ku tageen oo sadaqada markaa qarsooni inay ka fadli badan tahay sadaqada markaa la muujinayo ayagoo markaa mustadilliina oo daliishanaya in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayru lakum wayahay sidoo kale حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكسر لقى سوري عقبة بن عامر الجهني وسورينا يا مركا أبو داود يتلمذي نسائي أحمد صدوق عليسو حديث كيسو صارين وحقوي هي الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمصر بالقرآن كالمصر بالصدقة إن رسولك صلى الله عليه وسلم قفك لجهرية عدكيس قرآن كإنه قتل مامين قف صدقة ديس لجهرية وموجنية قفك سريسانية قرآن كيسنا وحلمية قف صدقة ديس سريستي أحاديث أي أحاديث كفر بدن ما وحينو عضهاي إن مركز صدقة قرصوني أي كفر بدن تهاي صدقة مركز على موجنيو إلا مكانه أما مرر لبيه كرو ده صدقة على موجنيا بكفر بدن تقرصوني إن ضدك ورباقه صاران يكون بيضان وكلا أما بعد زكدي أي تهاي وكلا كواس ورمركز وجوني مركز قضب كاس لبعضنا صدقة سرية هي صدقة مركز على نيمة كيف اللي بدن تهانا أنت أصلا كيوجد بيا waxaan u gudbayaa qodob saddexaad oo ah salafkii qaabkii sadaqada u bixin jireen iyo qaabka inagu hadda aynu u bixino farqiga u dhaxeeya muxuu yahay salafkeeni oo markaa saddexdii quruun ee nabigeena sallallahu alayhi wasallam inoo tilmaamay saddexda qarni ee ugu fadliga badan inay yihiin waa saxaabadii iyo taabiciintii atbaacu taabiciin sadaqada qaabkii u bixinayeen qaabab badan oo ka gedisan oo hadda aynu inagu u bixino baa jirta salafkeenu waxay ku dadaali jireen ridwaanullaahi ajmaciin sadaqada fadiiladeedii iyagoo og iyo bedelka ay ka helayaan sadaqada ayay horta yaqiinsanayeen farqiga inoo dhaxeeya wuxuu yahay dad badan zamankan joogna sadaqada way bixiyaan laakiin markay bixinayaan niyadooda iyagoo ikhlaas ay ka tahay
oona aaminsan bedel khayr la inuu ilaahay ku siinayo inta ku bixinaysaay way yaryihiin laakiin salafka iimaan baa qalbigooda ku jiray markastay sadaqada bixinayaan waxay aaminsanayeen bedelkeedii inay helayaan sadaqadaas sida awgeed baa salafku waxaa laga soo wariyaa inay samayn jireen midkood markuu uu sadaqaysanayo maalan masaajid buu imanayaa sadaqadiiba masaajidka meel qarsooniya dhigaya iska tegaya deetana dadkii sadaqada u baahnaa masaajidka markii yimaadaan way qaadanayeen cid ay ugu hagaagaan oo ay isdhahayaan ciddaasaa idin siisay deetana markii bannaanka ay ku arkaan ama ay ku manashe yacni ay maxaa la yidhahdaa ay ugu tahniyadeynayaan ama ay ku shukrinayaan ma jirto isagana ilaahay dartiis subxaana wa tacaala maadaama ula baxay ajrigiisa waa leeyahay bal qaarkood waxaa laga soo naqliyaa in markay sadaqada ay bixisanayaan intay qofka miskiinka garab fadhiistaan maraduu xidhan yahay inta xagga dambe ugu guntaan ay ka garab kici jireen deetana markii xaafadii uu tagu israa marada iska saar uu ku arki jiroon intaasoo dirham ama lacag intaasoo qiimaheedu yahay oo ugu guntan meeshii deetana taasna waxay fadiilo aad ku leedahay qarsoonida sheekhana sheekh cabdinaasir oo markaa tafsiirka noo marin jiray masjid bilaal baa markuu aayadan fasirayay in tubdu sadaqaati fa nicma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khayru lakum wuxuu markaa noo tilmaamay qisa aad u cajiiban wuxuu yidhi markaa sacuudiga waxaa jiray buu dad mutadawiciin oo ilaahay dartiis subxaana wa tacaala wax ula baxa oo sadaqada masaakiinta siiya markaasaa waxay kartoon bay wax ku soo ridayaan waxay ku soo ridayaan cid arkaysaa ma jirto markaasaa qofkii isagoon iska warhaynin baa kartoonkii jeebadda ama maxaa la yidhaha kiishka loo gelinaya ama salladiisa loo gelinaya ama gacanta laga saaraya deetana qofkaasi wejigiisa xataa ma arkayo deetana taasi markaa wuxuu ku tilmaamaya fadiilada ay leedahay sadaqada qarsoon taana markaa waxaan kaga gudbayaa salafku qaabkii ay sadaqada ula bixi jireen bal iska daa hantidooda oo dhan bay ilaahay dartii ula bixi jireen iyagoo aaminsan in ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa weji ay kaga rabaan innagana zamankeenna waxaad arki kartaa dad badan oo markii sadaqada ay bixinayaan dadkiisa sawiraya sawir bay ka qaadanayaan qaarkood waxay leeyihiin fiidiyoobu qof soo kaxaysanayaa ka duubaya deetana qof miskiin oo iska darbijiib buu tegayaa in yar buu hoosta ka gelinayaa shalay iyo maanta say ku ahayd buu yar wareysanayaa deetana farxaddiisii qofka buu muujinayaa kaameerad baa intaaba dhan loo duubaya deetana baraha bulshadu soo gelinayaan waxaan aaminsannahay taas yaa inaysan ahayn sadaqadii loo baahnaa ee ay laakiin ay tahay sadaqa markaa magac lagu raadinayo ama masama sharaf qofkii ku raadinayo waayo qofkan inaad duuduubtid ama aad kaamerad aad ku soo sawirtid oo khadka soo gelgeysa baahi looga baahan yahay baa la jirinba inaad laakiin wax siisaay wax u tartaay waa wax ilaahay subxaana wa tacaala aad wax kaga rabtid cid weji kagama rabtid laakiin haddii aad niyadaadii xumaysan riyaa baa soo galaya istusnimaa soo galaysa camalka haddii uu riyaa uu soo galana ikhlaaskiiba meesha ka baxaya camal haddii bilaa ikhlaas uu noqdona dee wuxuu la mid yahay markaa jasad bilaa ruuxa taana waa midaas ta kale markaa waxaa jira dad badan oo iyagana waqtiyo iyo amaakin ku khaas yeela oo dhahaya annaga waqtigan baa sadaqada bixisanayna ayadna waxaa fiican sadaqada zakada marka laga hadlayo waa gooni laakiin sadaqadan tadawuca inuusan qofku waqtiguna u yeelin waxaa fiican markastaba uu iska bixisado ilaahay dartiina ula baxo qaarkood markaa waxay leeyihiin bisha ramadaan bay ku khaas yeelaan oo bilihii kale sadaqa bixin maayaan bishan ramadaan keliyaati ku gooni yeelayaan horta sideedaba ramadaan bilaha kale fadiilo way la dheertahay laakiin cibaado marka laga hadlayo cibaado iyada unu gooniya oona bilaha kale la sinin ma jirto haddii qofka waxaa la rabaa un 11 bilood oo uu soo cibaadaysanayay cibaadadii uu samaynayay cibaado ka dheeraad ah oo sidii ka dadaal badan ka juhdi badan ka waqti badan inuu la yimaado unbay la dheertahay markaa sida awgeed ba sadaqadiiba ku gooni yeelayaan bishii ramadaan markaasaa masaakiin baa lasoo tira koobi xaafadii baa laga soo qorqori meel baa la iskugu yeedhi meeshii baa la wada imanayaa meeshii marka la wada yimaado baa mid kastaba caagadii saliiddii iyo raashinkii oo loo dhiibayo baa markaa igu sawir la leeyahay qofkii markaa dhowrsoonaa oo gurigiisa ku dhowrsoonaa miskiinnimadiisa in ay ku koobneyd gurigiisa baa waxaa la dhex gelinaya miskiinnimadiisa bulshadoo dhan baa la hordhigayaa markaasaa isagana dadkaasi magac bay ku raadinayaan intay khadka saa u dhexgeliyaan bay dhahayaan xaafad heblaayo waanu quudinay intaasoo qoys baanu maanta gaajadii iyo baahidii ka saameylayay waxaana garanaynaa xaqiiqatan inay beri ay dhacdayba bal iska dacaamo inay ku dhacdo dad badan oo diinta xambaarsanaa in saasoo kale ay ku dhacday oo lagu yidhi kale raashin baa laydin siinayaa deetana meel weyn loogu keenay layskugu yeedhay meel maxfaloo bannaana layskugu yeedhay deetana yimaadeen nin kastaba isagoo xaaskiisii wata uu tegey deetana gabadh xabashiyadoo kiristaan ay sasawiraysa ayagu markaa raashinkii qaadanaya bal waxaan leenahay waxaas waa ihaano diinteennana kuma bannaano
sharcigeenuna inooma banaynin qofkan haddii baahi ay keento matalan dad waxaa jira dibadaha lacag looga soo dirayo sadaqeeya la dhihi deetana noo soo diro xaqiijin inaad sadaqadii bixiseen deeta waxaan ku ogaano na soo tusiyaa la leeyahay taa waxaan dhihi karnaa baahiyaa keento laakiin waxaa la rabaa qofkii raalli ku ah inay soo kaxeeyaan deetana sadaqada ay siiyaan oo matalan maskiinka marka loo yeedhay lagu dhaho anagu sawir baan qaadaynaa dad baa sadaqadan loo dirayaa raalli ma ka tahay inaanu ku sawirno adoo markaa raashinkii lagu siinayo deetana haddii uu yidhahdo haa raalli baan ka hay deetana inta la sawiro loo diro laakiin miskiinkii lama weydiinayo aayar baa si qarsooniya looga duubaya qaarkood baan yani indhaha annaga aanu saarnay inta lagu yidhi kaaleya sadaqadan qaata deetana markay soo xaadireen hoos iyo si qarsooniya loo sawirayey lugaha qaar laga sawiro qaar maxaa la yidhahdaa caloosha laga sawiro qaar dhegaha laga sawiro deetana sawiradiisaa lagu diray indhaha annagaan saarnay waxna looga waramayna maaha sidaa awgeed sharciga ilaahay kuma bannaano wax maanta dee dood laga keeni karaayna ma aha miskiin aanan raalli ka ahaynin badaha bulshada la soo geliya isagoo caagad saliida wata in la soo geliya xaaraan bay noqonaysaa bal isagiina markaa qalbijab bay ku noqonaysaa miskiinnimadiisii u dhowrsoonayd baa uga fiicnayd marka sidaa awgeed farqigaas baa inoo dhexeeya dadkii salafku say ahaayeen horey baan ka soo sheegay dadkeenna zamanka sadaqada bixiyayna qaabka iyo xaaladahaas bay ku sifaysan yihiin bal qaarkood lacag bay ku raadiyaan masaakiinta intay wax siiyaan oo sawira ay ka qaadaan bay dibadaha u diraan iyagana marka halkaa bil looga soo diraa wax marka hadda aan sheegayna maaha dad guruubo loo sameeyaa jira bal kuwa ku kala tartama guruub hebel sanadkii hore intaasoo qofuu quudiyey oo markaa baraha bulshada uu geliyo caan ku noqdee innagana sanadkan maxaa inoo qorshaysan markastaba shirar ka gala baa jira taana xaqiiqada waa wax bulshadu ay u caddahay oo markaa indhihiibaa mucallimo oo arkaya markaa sidaa awgeed waxaan ku soo koobayaa qaybtaana kaga gudbayaa qofkii ilaahay dartii ay ka tahay waxaa fiican qarsooni inuu la baxo oo uusan dadkiisa sawirin markastuu sadaqa bixinayana kaamerada intuu soo xambaarto uuna ku waran kaale ila duuba dadkaa wax siinayo markaa sidaa awgeed taas waa laga gudbay bal xataa qaar badan waxaa jira qur'aankii ay aqrinayeen duubaya oo iyagana wax ka raadinaya oo qur'aankii ilaahay subxaana watacaala dartii loola aqrinayay ee riyaaga in lagaga fogaado la rabay magac kuraadis lagaga fogaado la rabay ee ilaahay subxaana watacaala ajri xasanaad lagaga rabay halkii xarafee aqrin la aqrinayay baa inta kaamerad la soo qaato oo la wareejiyaa la dhihi hebel maanta intaas waa aqriyay hebel intaas waa aqriyay hebel intaas waa aqriyay markaasaa sidii maxaa la yidhahdaa galaas oo kale la xaadirinaya la saxaya sida awgeed waa aafo horta dalkeenna ka jirta lana rabo in laga dabargooyo una baahan in asalka loo laabto oo asalkuna uu yahay sidii salafkeennu ay sadaqada u bixisan jireen asalku waa halkaas lama hayo salafkeennii ridwaanullahi ajmaciin oo markay sadaqa bixinayaan dad u yeedhan jiray bal iska daa kaamerad ma jirin laakiin dadka inta u yeedhanna eega dhihi jiray baana jirin sida awgeed in khayrku wuxuu ku jiraa sidii saxaabada iyo saddexdii qarni iyo labadii qarni ee kala taabiciinta atbaacu taabiciin saddexdii qarni ee fadliga badnaa qaabkay sadaqada ula bixi jireen in loola baxo buu fadiilada iyo wala khayrku ku jiraa wixii kale intaa ka dambeeyana ee fikir iyo le ku socdo maxaa la yidhaahdaa qurux iyo le si markaa dadku ay rabaan oona sharcigaana sal ku lahayn khayr inooguma jiro intaasan walaalahayna dardaaran ku siinaya wallahu subxaanahu watacaala aclam يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب